dhawaan waxaa warbaahinta qaar lagu baahiyay warar been abuur ah oo sheegaya in degmada Tawfiiq iyo deegaano hoos yimaada ay qabsadeen ururka Al-Shabaab waxayna wararkaas been abuurka ah sababeen inay halkaas isaga laabtaan hay'adaha samafal oo ku sii jeeday degmada Tawfiiq iyo deegaanada hoos yimaada waxaana intaas kadib wararkaas been abuurka ah beeniyay taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland ee aaga degmada Tawfiiq Cornel Gacayte oo sheegay inaysan jirin wax amni darro ah oo loo iman waayo degmada Tawfiiq isagoo sheegay inay wararkaasi faafiyeen dadka xun horumarka degmada Tawfiiq iyo deegaanada hoos yimaada waxaana kamid ahaa waraysigii Cornel Gacayte walaal wax anaga deegaanada yimid iyo wax bariisna ka samaystay iyo wax ku sugan iyo waxaan aragnay taatan ma jiraan meesha mas'uuliyaddiisa saacadda aan u qaatay aniga ah xog aan anigu ka hayna cid ka bixin ka ma jirto meeshaas sidoo kale odayaasha iyo laamaha amniga degmada Tawfiiq ayaa iyaguna dhinacooda la hadlay warbaahinta iyagoo kormeer iyo socdaal ku tagay deegaano badan oo ka tirsan degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug waxayna adkeeyeen hadalka taliyaha iyagoo sheegay in wax walba oo la xiriira amniga lagala xiriiro mas'uuliyiinta ku shaqada leh ee aan la dhageysan dadka aan mas'uuliyadda u hayn degmada kuna hawlan sidii ay hay'adaha samafalka iyo dadka u cabsi gelin lahaayeen kuwaas oo aan la aqoon waxa ay ka faa'iidayaan marka laga tago inaysan jeclaysan horumarka iyo nabadda ka jirta degmada Tawfiiq iyo deegaanada hoos yimaada waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha degmada Tawfiiq oo ay weheliyaan booliiska degmada iyo ciidanka daraawiish oo si wada jir ah uga hadlay dhinacooda bismillaah alxamdulillaah salaatu wa salaam ala rasuulillaah halkaani waxa weeyaan magaalada boqolo oo ka tirsan degmada Tawfiiq waxa shir saxaafadeedka ayaan hadda maanta ku saabsan yahay warar asbuucan saxaafada ku jiray oo leeyahay Al-Shabaab baa wadanka yimid deegaankan boqolo Tawfiiq aldanaane iyo dhammaan aagan hogshin iyo hogcaymo iyo hogcadaad midna inaysan imaan Al-Shabaab iyo waxa la sheegayo ayaanu ku cadeynaynaa warbixintan intaas aan soo gaabinayaa waxaan maanta soo baxnay annagoo iskugu jirna culimadiinka maamulka degmada booliska daraawiishta dhammaantood inaan soo dhaydayno xayaa warana aanu maqalnay wax ka jira ma jira wadanka annaga joogna waxaan dadka deegaanka oo jeeda oo har iyo habeen bay taagan waa idinka arkaya booliskii iyo daraawiishtiida ay taagan yihiin waxaan codsanaynaa in horta ayaga lagala soo xiriiro wixii ku saabsan amniga waa waajib in laga hadlo oo la beeniyo war walba oo aan sal iyo raad lahayn oo suurad xumaynaya amniga iyo nabadda ka jirta deegaanka haddii aan laga hadlinna waxaa ka dhalan karta inay amni ahaan uga cabsadaan cid walba oo tagi lahayd siba hay'adaha samafalka oo nugul cabsi gelinta sidoo kale degmada Tawfiiq waxay ka mid tahay meelaha ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen waxayna dadka ku nool degmada Tawfiiq iyo deegaanada hoos yimaada u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo la gaarsiiyo si wax looga qabto abaaraha daba dheeraaday ee ka jira degmada Tawfiiq iyo deegaanada hoos yimaada intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay degmada Tawfiiq